بسم الله الرحمن الرحيم سواح ونكسن أصحابتا قيمها قايها له ميل والبا جوجتان كسو دوادا وebsite-ka Somali Software barnaamijyo tutorial ah maanta waxaan idin wadaagi doonaa barnaamij la yiraahdo Autoplay hadaba barnaamijka Autoplay muxuu yahay Autoplay marka aan ka hadlno ama qayb kamid ah aan ka sheegno Autoplay waxa maanta halkan ku baran doonaa barnaamij la yiraahdo Autoplay hadaba sidee aad u download gareysan kartaa barnaamijka Autoplay computerkaagana sidee aad u install garan kartaa barnaamijka Autoplay waa barnaamij ku suurtagelinayo in aad isku keentid tumaneeyo software oo hal meel aad ka dhigtid tusaale marka aan ku soo qaato barnaamijka Autoplay waa noocan waxa arki jirtay inta badan anjalad desktop ka saaran ama tools desktop ka saaran wuxuu soo kacayaa anjaladan sida tan waxaad ku maasan tahay isticmaalka adeegga Somsoft Toolbox barnaamij waaye oo Somali Software u gaar ah barnaamijkan oo kale ayaa lagu suubiyaa Autoplay Photoshop ayaa klik ku siinaysaa internet files markaan klik siinaysidna intaan software ayaa ku jirto halkaan kalena waa taa kliksis multimedia files waxa ku jirto intaan oo software ayaa ku jirto antivirusna taa kliksis intaan oo antivirus ah ayaa ku jirto iyo waxa dheer ah Sabia wuxuu inta ku qoran hoos u yareey oo minimas u taagan ka bax oo u taagan exact okay marka barnaamijkan oo kale ayaan suubi doonaa marka hore waxa soo kacsanaynaa Google-ha waxa rabnaa inaan soo download gareysano si aad soo download gareysan karnaa Google ayaan qoraynaa kadib barnaamijka Autoplay ayaa qoraynaa Autoplay Media Studio waa dhahnay free download isaga ku kan Autoplay bisa taa qortaalahan kale isaga ku soo raacay free download noocan ayaa soo degsanaysaa haddii nooca ida ayaa jiro version-kiisa 9 hadda soo baxaya jiro marka nooca doontid ayaa qaadan kartaa marka inta la dhehaysa automatical waa kana uu soo kacay redka tab uu raadinaya waa tahay uu soo kacay waa kana Autoplay Media Studio download now halka ayaa klik siinaysaa oo soo dejinaysaa automatical sidaas ayaa u download gareysan kartaa downloadkii ugu wadaa hadda meesha u jeedaan downloadkii ugu wadaa dardid waa kana downloadkii ugu wadaa markuu soo download gareysamo kadibna waa ku install gareyn doonaa computerkeena in yar waa hagaag akhyaarta waa soo download gareeyay barnaamijkii Autoplay Media waa soo download gareey kadib raar ahaan soo download gareey waa soo kicinaysaa wajar click ama right click open kadib install gareey yes saan ayuu soo kacaya barnaamijka adowdina anjalada saan ayuu soo sameeysan dhowr software-na oo geli doonaa Autoplay I try to take you serious but you think I'm a fool I know you need I ain't fucking with you installing click siinaysaa automatic hees ayuu ku soo kacay oo American ah runtii nagaraal naqda barnaamijka Autoplay heesna lagu xiri karaa miya cod music ama codkaaga ku xir ama codka heesta website-ka ku xir marka adiga hees American ayuu ku xirnay marka dhageystayaal iyo daawadayaal nagaraal naqda saa darteed marka installing ayaa klik siinaysaa waa tahay barnaamijkii waa kana oo soo install gareeyay kadib laba jeer klik ama soo kici automatical saan ayuu soo kacayaa barnaamijka insha Allah inta barnaamijyo kale aan ku kulmi doono iyo cashirka xiga ee barnaamijkan Autoplay oo aan ku suubi doono cashirka xiga anjalad noocan oo kale oo software badan
ku jiro ayaan ku subi doonaa cashirka xiga la soco cashirka xiga ee barnaamijka Autoplay iyo maxamed abuukar cabduqaadir maxamed nuur ayaa barnaamijkan tabinayay gacan weyn waxay la geystay Said Cumar Cabdullaahi Daacad sidaas iyo amaana Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu